halkani waa xaafadda Kibimbiri oo qiyaastii 2 saacadood looga socdo magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Mariam Nambatanzi waa hooyo reer Uganda ah, waa 38 jir, waxaana ay dhashay 44 carruur ah. 6 ayaa ka dhimatay, waxaan hadda u nool 38. I've given birth waxaan dhalay 44 carruur ah, 38 ayaa hadda nool. 15 ka mid ah waa gabdho, 23 waa wiilal. sanad xishood ah ayay ku jirtay markii iyadoo carruura loo guuriyay nin iyada 28 sano ka weyn. waxay sheegtay inaysan xilligaa wax aragtiya ka haysan guurka, balse ay yaqiinsatay markii arrintu dhacday. reerkeeda ayaa go'aanka lahaa oo bixiyay. arrintan waxay dhacday 1993. nakato ilaah qadartii qorshaha qoyska iyo waxyaabaha lagu hakiyay uurka ee ay dhaqaatiirtu qoraan waa qaban kari waayeen Mariam. nagezaako ku family nenema contraceptives didn't work for me. kahortagga uurku waxba igama taro. sidaa darteed dhakhtarku wuxuu ii sheegay inaanan isticmaalin. sidaa darteed waxaan ka fakarayaa inaan uur qaado. carruurtani uma baahna inay bannaanka aadaan si ay saaxiibo kale ula soo ciyaaraan oo iyagaa shirkad ah. Mariam waxay cunugeedu koowaad dhashay iyadoo 14 jir ah. curadkeedu hadda waa 24 jir, halka yaraankeedu uu 2 jir yahay. yemed nakagwa Jerias Sharif waxay u dhashay carruurta hanaanka tixanaha mataanaha. 6 jeer waxay dhashay mataana 2 4 jeer mataana 3 ah, 3 jeer mataana 4 halka inta kale ay kali u dhashay. xaafadeeda waxaa looga yaqaanaa Nalongo Muzala Bana oo la micno ah hooyadii mataanaha u soo saaraysay 4. Mariam waxay sheegtay in aabaheed uu dhalay 45 carruur ah oo uu ka dhalay xaasas kala duwan, balse ay dhammaantood qaabka mataanaha u dhasheen. nakato Dr. Charles Kigundo oo ka tirsan Muluga Hospital ayaa xaqiijiyay in Mariam arrinteedu ay tahay dhaxal dhanka aabaha ah. waxaa la qabay muddo 25 sano ah. Mariam waxay soo iibsatay buugga magacyada si ay uga tixraacdo qaar ka mid ah magacyada carruurteeda. waxay dhabarka u ridatay mas'uuliyadda carruurteeda kadib markii ay kala tageen ninkay carruurta u dhashay. waxay sheegtay inuu noqday mid rabshad badan uuna guursaday xaasas kale. waxay kaloo xustay inuu dili jiray xilliyada qaar muddadii ay isqabeen. Mariam Nambatanzi oo nolosheeda inta ugu badan ku qaadatay inay mataano dhasho sanad walba ayaa loo arkaa hooyada labaad ee carruurta ugu badan dhashay adduunka. sida ay daabacday BBC-da adduunka la hadasha goor hore, haweeney Raashiyaan ah oo la yiraahdo Vasilyev ayaa haysata rikoorka hooyada ugu carruurta badan adduunka, taasoo dhashay 69 carruur ah. Mrs. Vasilyev waxay 16 jeer dhashay mataano 2 ah, 7 jeer mataano 3 ah, 4 jeerna mataano 4 ah.